waa wixii aan u dirsanay ciidanku in dagaalamaan aan u dirsanay meel kareem la isku marinayo tinta loogu jaray uma inaan dir dagaal aan u dirnay sida aad sheegtay in dad mas'uuliyiin ay horta macaash siyaasadeed ka raadiyaan in ay cadowga ummadda Soomaaliyeed oo khawaarijtu ay ugu horeyso ay nooleeyaan ninka jeclaan lahaa inuu arko ciidanka Soomaaliyeed magaciisa ku sheegay asaga ma ka hadlay طبعا ها عبد الرحمن waa kamid dadka runtii caadaystu kamid yahay dadka Soomaaliyeed weydii ka hadlaysa dadka suuqa u abuuray waa jeeda dadka hadda magacooda qaarkood oo ayagoo mas'uuliyiin oo hore amniga qaranka ka yani dawladda laakiin cadaalad isku dawladda aan ahayn laakiin asaga amniga mas'uul ka ahaa waxaan qarsanahay dawladdaas aan kamid ka inaysan shabaab sida ahayd loola diriro ula diriro dawladdii ka tirsaneed ee farmaajo ma waxa ku tuhmaysaa ku eedeynaysaa inay shabaab binaxis runtii saas aniga aan aaminsanahay inaan dagaal shaqadii ay ahayd shabaab in laga qabto inaan ka qaban aan aaminsanahay يعني dadka Soomaaliyeed runta u sheega lagama dhunto xaqiiqada cid maaragtay gobol joogta iyo Muuse iyo mid lamida oo aan dawladda dhexe ahayn oo xaq u leh inay magaca Soomaaliya heshiis caalami ku gasho ma jirto wax sharciyada oo arintaas ay siinaysaa ma jirto haddii go'aanka dawladda federaalka uu Garowe iyo Hargeysa ka hirgeli waayo sidee buu uga hirgeli karaa lughaye iyo oodal iyo dhulka kale oo ka sii fog oo askari Soomaaliya iyo askari dawladda Soomaaliya ka tirsan oo jooga aysan jirin go'aanka dawladda Soomaaliya waa hirgalay inuu hirgalana waxa cadeyn oo ah aaway wixii muxuu ahaa Abi Ahmed iyo Muuse Biixi beenta ay isku soo sheegeen aaway xagee ku dambaysaa xagee taala muwaadin Soomaaliyeed oo dhibtooday oo khawaarijtu ay dhibtay oo dawladdii Soomaaliyeed ee xaq ugu lahaa inay ka protect garaysa cadawgaas ay ka difaaci weysay oo ay ku fiirsatay asaga nafta ku qasabto inuu qoriga qaato oo isdifaaco in ninkii gaabiskaas lahaa intuu media soo hor fariisto oo muwaadinka ku eedeeyay maxaa isku difaacaysa horta nasiib darooyinka Soomaaliya ka dhacay kamid tahay